saaka xaalad xun ayaa ka taagan xaruntii sirdoonka qaranka ee Somaliland. wararka ka soo baxaya xarunta ayaa sheegaya in ciidamo gadoodsan oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee qaranku guud ahaanba la wareegeen xaruntii magaalada Hargeysa ee sirdoonka qaranka. ciidamada dharcadda ee la wareegay xarunta waxay rasaas ku fureen taliyihii xaruntaasi haystay oo lagu magacaabo Ina Guhaad. sababta keentay in ciidamadaasi gadoodaan waxa la igu sheegay musuqmaasuq baahsan iyo in awooddii ciidamadaasi lahaayeen uu sidoo doono u isticmaalay wiilka uu dhalay madaxweynuhu ee Axmed Muuse Biixi Cabdi. Axmed Muuse ayaa bannaanka ka qortay dhalinyaro dharcada kuwaasi oo afduubta jirdila tacadiyo kalena u geysta dadka shacabka ah iyo qof kasta oo ka aragti duwan aabihii. inkasta oo arrintaasi sharaf dhac iyo kalsooni darro ku abuurtay ciidamadii sirdoonka qaranka, haddana sirdoonka leexsan ee u taliyo Axmed Muuse Biixi ayaa mushahar ahaan waxa loo siin jiray lacagta ciidamada sirdoonka qaranka, waana sababta keentay inay maanta afgembi ku qabsadaan guud ahaanba xarunta sirdoonka qaranka ee Somaliland. xaafadda shacabka oo ay ku taalo xarunta sirdoonka qaranka ee Somaliland ayaa waxa la wareegay ciidamada dharcadda ah kuwaasi oo gabi ahaanba maanta ka talinaya. mana jirto cid soo geli karta oo waxay diideen gaadiid iyo dadba inay soo galaan xaafaddaasi ay ku taalo